بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee qiimaha badan ee ku xiran janalkeena caafimaadka ee ka faa'iideysto barnaamijyada caafimaad ee taxanaha inoo ah. maanta waxaan wadaa topic run ahaantii aad aan u maleynayo in looga faa'iideysan doono bulshada badanna ay ka cabtaan, inta badanna dadka ay qarsadaan balse aan ahayn wax la qarsado. maxaa yeelay waxaan Ilaahay baa keena, Ilaahayna baa qaado. daawo hadduu xanuunka leeyahayna maba ahanba in la qarsado. ciwaankan ka hadli doono waxaa waa maanta infectionka ku dhaca kaadi mareenka ee loo yaqaano UTI, lagana wado urinary tract infection. UTI waa infection ku dhaca qaybaha kala duwan ee habdhiska kaadi mareenka urinary system sida kilyaha, kidneys, tubooyinka kaadida kasoo qaada kelyaha ee keena kaadi heesta ee loo yaqaano ureterus, kaadi heesta ama kaadi birta oo loo yaqaano urinary bladder, iyo tubada kaadida kasoo qaada kaadi heesta ee u soo saarta xagga dibadda ama xagga banaanka ee xubinka taranka. haddaba haddaynu soo aragna infection waxa uu yahay, waxaa muhiim ah in aan ogaano maxaa sababa infectionkan. balse intaan u gudbin waxa sababa infectionkan, xanuunkan ama infectionka waxa uu ku badan yahay inta badan dumarka ayuu aad ugu badan yahay. haddaba maxaa sababa UTI ama infection? xanuunkan oo ah mid ay aad uga cawdaan dadka Soomaaliyeed iyo dadyooga adduunkaba, inta badan jeermis ilma aragta ah ayaa sababo. jeermiskaasoo loo yaqaano bacteria, gaar ahaan nooca loo yaqaano E. coli. E. coli oo ah bakteeriyada keenta infectionkan aan ka hadleyno, waxa ay kasoo gashaa xagga xubnaha taranka, kadibna waxa ay usii gudubtaa xaggaas iyo kaadi heesta oo ay u keento caabuq aad u daran. infectionkan waxa uu ku badan yahay dumarka markii loo eego ragga. haddaba halkaas waxaan uga soo gudubnay waxa sababa cudurkan iyo waxa uu yahay. maxaa inoogu xigo? waxaa inoogu xigo in aan ogaano calaamadaha lagu garto cudurkan. inta badan calaamadaha xanuunkan qofka ma dareemo oo xanuunkan waa shibane. hase ahaatee dadka qaar ayaa ka cawdo calaamadahan aan idinla wadaagi doono. qofka oo ceshan waaya kaadida oo ay durbadiiba soo dhaafto kaadida, taasoo afka qalaad loo yaqaano urgent urination. qofka oo dareemo gubasho ama xanuun kolkii uu kaadinayo, burning sensation while urination. qofka oo suuli galistiisu badato, qofka mar walba musqusha ku laalaabto oo loo yaqaano frequent urination. qofka oo ay markay muuqaalka kaadidiisu isku bedesho sida caadka daruurta oo kale, yacni qofka muuqaalka kaadidiisu waxay u ekaatay caadka daruurta oo kale, waxaa loo yaqaanaa urine appearance cloudy. iyo qofka oo muuqaalka kaadidiisa isku bedesho cadaan ama gaduud, amaba kaadida inuu dhig soo raaco, urine with blood. iyo qofka oo kaadidiisu yeelato ur aad u qarmoon, strong smell urine. iyo qofka dumarka ah oo xanuun fara badan ka dareema miskaha oo loo yaqaano pelvic pain. haddaba haddaynu soo aragna calaamadaha cudurkan iyo waxa uu yahay iyo waxa sababa, haddaba sidee looga hortagaa? ka hortag sameeya cudurkan. wax walba way leeyihiin ka hortag. haddaba sideen uga hortagnaa cudurkan? si aad uga hortagto amaba aad u yareyso dhibaatooyinka cudurkan, waa in aad qaadaa tillaabooyinkan aan soo sheegi doono. cab biyo badan maalin walba, maxaa yeelay biyaha jirkaaga waxay ka sifeynayaan wax walba wasaq ah iyo wax walba dheeri ku ah jirka. u mayr ama u dhaq saxarada iyo kaadida kor ama xagga sare ama kor iyo kor. yacni kaadida iyo saxarada marka hore waa in aad hormarisaa kaadida, kadibna aad saxaro dhaqdaa. arrintan waxay gaar u tahay dumarka.
dumar badan waxa infectionka u keena waa arintan. Marka hore waa in kaadida la iska mayro kadib la dhaqo saxarada. Soo kaadi mar walbo ka hor iyo kadib jamaaca dumarka iyo ragga labadaba. Ka dheerow oo iska ilaali inaad marsato walxaha qooya xubinka taranka ee dumarka. Ha marinin ama ha isticmaalin in aad ku buufiso barafuun ama cadar. Barafuun ama cadar in aad xubinkaaga marisa ka ilaali. Haddii ay ku qabato kaadi degdeg ah, u aad suuliga si degdeg ah oo ha isku daahin kaadida. Haddaba qodobadaas aan soo sheego oo idil waxaa looga hortagi karaa infectionka. Haddaba sidee loo daaweeyaa? Waxaa lagu daaweeyaa inta badan infectionka ku dhaca kaadi mareenka qalajiyaal antibiotic intaas soo dila jeermiska E. coli. Qalajiyaasha nooca ugu badanna waa amoxicillin uu qofka qaadan karo, waxaana wanaagsan in uu wado muddo 7 ah. Muddo 7 inuu wado. Haddii uu xanuunkiisa zaa'id yahay 3 waqti inuu qaato, normal hadduu iska yahayna subax iyo galab inuu qaato. Daawada infectionka la isaga daaweynayo waxaa wanaagsan in aan la kala jarin. Daawada in aan maalin qaadato maalin iska dhaafto kuma anficayso. Daawada waa in aad week u qabsataa, weekgaasna aad si saxan oo joogto ah u qaadataa. Subax iyo habeen ama 3 waqti waa inaad u qaadataa. Kaniinka amoxicillin 500 mg. Haddii uu xanuunkan qalajiyaasha wax kale tiri waayo, waxaa laga yaabaa xanuuno kale dheeri inay ku raacsan yihiin. Waa in aad si degdeg u tagtaa dhakhtar lagu baaraa lana ogaadaa cilada iyo dhibka meeshay ka jirto. Haddii aad qalajiyaasha wax ku tiri waayeen, waa in aad la xiriirtaa dhakhtarkaaga oo baaritaano dheeri lagu sameeyaa si loo ogaado cilada meesha ay ka jirto. Haddaba ka hortagu waxa uu ka wanaagsan yahay daaweynta. Ee ku dadaal marka hore nadaafadda, maadaama infectionka ay keento nadaafad darro. Waxa ugu badan haddana ay keento biyo la'aanta, qofkii oo iska ilaalin waaya saxaradii iyo kaadidii. Waxyaalahaas oo idil waa waxa ugu badan ee Soomaalida ay ka cabtaan infectionka, gaar ahaan dumarka. Marka nadaafadda guud waa in lagu dadaalaa marka hore. Topigeeni ku saabsanaa maanta infectionka halkaas ayuu noogu egyahay. waad mahadsantihiin walaalaha quruxda badan ee nagu xiran inoo share gareey video insha Allah si u gaaraan walaalo kale badan uga faa'iideystaan like ta inoo saara waa dhiirigelin waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.